Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa caawa dib ugu laabtay dalkiisa kadib safar si shakhsi ah ugu tagay dalka Faransiiska sida ay baahisay madaxtooyada dalka Jabuuti. Wararka ka soo baxaya xukuumadda Jabuuti ayaa ku soo beegmaya xilli xalay ay warbaahintu tabinaysay in madaxweyne Geelle xaalad caafimaad uu u jiifo mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala dalka Faransiiska. Warka la xiriira xaaladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayay dadku isweydiinayeen, waxaana madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu qabsaday warkiisa warbaahinta ay ku xiriiraan dadweynaha ee baraha bulshada ilaa heer la isweydiiyay nolosha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Saacad ka hor wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale waxa uu bartiisa X uu ku baahiyay in madaxweynaha Jabuuti uu wanaagsan yahay oo uu nool yahay si wanaagsanna uu u shaqeynayo. Hadalkan ayaa waxa uu ahaa midkii ugu horreeyay ee ka soo baxay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Jabuuti ilaa marka uu dib ugu laabtay